buuhoodle arrintaana ka waran وعندي هذه شغلان مجرد أنا قصة منين وهاي تاريخان هذه شيء طلعت شيء طلع بيشة هاي واحد سوق على المال مالك يوم بتاعه زي ولا سوق عليه أنت أقرب فرم لأيام هنا اليوم بنا على ورقة في المرشة قال بنا ولا ما كأول يجيب ما يحصل معه هذا السنة ولا الوقت يعني ده وأنا كنت بدي مع كل شيء المرامية أو كل حاجة نبيها بإدمان مرنا وتحصل على طول. waa gartay marka waxaa jirta oo kale in howlgallo aad ka fuliseen magaalada oo dad badan aad ku qabqabateen marka dadka rayidka ah ee magaalada jooga ee dhalinyarada ah iyo kuwa al-shabaab sidee ku kala garataan marka aad gasheen magaalo horay ciidamada dawladda aysan u joogin magaaladii dadka meesha tagay waa dadkii ku dhashay laakiin waanu soo haynaa shabaabka muddo badan ayaanu ku jirnay gobolkan waanu isnaqaanaa oo qof waanu isku naqaanaa dhibaato naguma aha inaan adigu iyo shacabka kala soorno aan kala soorno wax dhibaataa naguma aha marka taas dhibaatada naguma hayso waa kala naqaanaa iyo shacabka mananta qiimo maxmuuma karaan sababtoo ah waa dadkii gobolka u dhashay dadka meesha weynka ka tirsan waa dadkii gobolka u dhashay u badan yihiin marka waxay nagu magaalada doonta inaanu kala saaro waa gartay marka taa laga soo gudbo waxaa jirta in ciidamada al-shabaab ee halkaasi ku sugnaa ay haysteen hub iyo gawaari iyo waxyaabo badan marka dhammaan waxaasi oo dhan meel hadda oo la leeyahay way ku sugan yihiin oo aada og tihiin miyaa jirta laakiin waanu ognahay meelaha ay ku kaydsadeen waanu ognahay magaalada berigeeda daro ciidamo ayaanu magaalaha ay ku kaydsadeen haddii ciidamaha ayagana waa qaban doonaa haddii waa gartay ugu dambeyn tillaabada xigta iminka idiin qorshaysan inaad ku dhaqaaqdaan maxay tahay waa noo qorshaysan inta shabaab ay joogaan gobolka meel ka mida ama ay joogaan wadanka meel ka mida inaan hawshaa wadno si aan uga fikirno oo ummadda Soomaaliyeed ay ugu baxdo horumar barwaaqo iyo bashbash ayagana looga farxasho ayaan hawlgalkaas u yimaadeen aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Tawane Axmed Burey oo ah gaashaanle sare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ahna taliyaha ciidamada ee gobolka Hiiraan ee dawladda Soomaaliya oo inaga warbixinaya howlgalladii ciidamada dawladda iyo kuwa amisom ay dhawaan ka furiyeen qaybo kamid ah gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Buulaburda haddana waxa uu ku sugan yahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan aad ayaad u mahadsantahay Cabdi Xasiis Xildhibaan saadaasi wada hadalkaaga waan ku soo noqonayaa mar kale waxay la tahay weerarada hadda socda iyo ballanqaadyadii ay madaxda Soomaalida u sameynayeen muxuu ahaa shacbiga Soomaaliyeed oo ah inay ka xoreynayaan kuwa duulaanka ku ah jecelahay mar kale maanta inuu dib uga bilowday Soomaaliya arrintaas waxaan jeclaan lahaa inaan wax ka yiraahdo hadalkii taliyaha ciidamada xoogga dalka ee ka soo hadlayay magaalada Beledweyne Tawane Axmed Burey oo ahaa magaalada dagaal kama dhicin inay difaacaan ayay isku dayeen ciidamo fara badan ayaan ka qabanay halka kuwa kalena aan ka leynay yacni hadalla isqaban karaa ma aha waa jeclaan lahaa inuu qadka taleefanka kusii jiro si uu tasiilaad dheeri ah dadka Soomaalida uga siiyo magaalo aan dagaal ka dhicin tiro ciidamo ay ku geeriyoodeen ciidankii joogay ay isku dayeen inay difaacaan waxay ka mid tahay jahwareerka marka waxaad aaminsan tahay lagu hayo muxuu ahaa bulshada Soomaalida waxaan rajaynayaa dagaalka al-shabaab lagula jira hadda ma bilaaban wuxuu bilowday dabayaaqadii sanadkii 2016 howlgallada hadda jira kuwa ka horeeyay oo al-shabaab la gaarsiiyay inay laamaha warbaahinta soo hor istaagi waayaan kana hadli waayaan ayaa jiray halka maanta ay ku dhiiradeen inay mar kale dib ula hadlaan dadka Soomaalida walaalkay xildhibaan waxaad moodaa malaha si fiican buusan u dhageysanin walaalkay markuu Tawane hadlay Tawane wuxuu yiri markay isku dayeen inay habeenimo ku soo noqdaan way ku soo noqdeen Buulaburda waa ka qabanay buu yiri dad badan waa ka qabanay hubna waa ka qabanay ma aha jidkii intii lagu soo socdo kaliya ma
ويعني وحر اوبريشن كي قبرني بكل مركز سو غلن وانا wax iska normal taas oo laakiin general hadii meesha su'aal ka weydiiyo waxa dad badan ay isweydiinayaan al-shabaab gobolka Hiiraan ku sugan gaar ahaan Buulaburda ma ahayn dad iska lugay karo dhalinyaro ah waxay haysteen hub badan technique ay haysteen waxaasi meesha ay ku baxaan iyo qaabka ay u baxaan dawladda markii hore kama sii baaraan degin ma ay dhici karto inay kala baxaan hubkooda meeshaas arrintaas waxa way hadda arrin sharciidana way oo aan rabin inaan ka sheegno halkan idaacada laakiin dawladdu markay operation qaadayso waa si ogta qolada noo qaabilsan howlgelintu waa ka warqabaan dadkan iyo tirakoobkooda iyo meeshay joogaan iyo ku sugan yihiin war baad heli doontaan haddii waa degdegaysaan qolooyinkina wariyaasha iyo xildhibaan iyo xogaa inaad degdegaysaan mooda u kaadiya shaqadan waa la wadaa si fiican bay ku socotaan ka warqabno intaan anagu ka ognahay soo ma garan nimankan inay hubka la baxsadaan oo ilaa cid ogolaan kartaa ma jirto waayo hadday hubka la baxsadaan waa logic intay meel tahay biri kugu soo noqonayaan nin walba oo caqli waa garan kara marka operationadaas iyo howlgalkaas aan u dayno dadka shaqada wada fieldkii ku dhex jira wixiina waa soo saarayna oo bukuuro banaankan keenin haddaad u baahantay qaybta aan hayn tafadal waxaan siinayaa anigu usoo laaban doonaa cabdicasiis على الشين سيد مقليسي دولة الصومالية ciidamadeeda qaybo kamid ah ma ahan magaalada Beledweyne iyo gobolka Hiiraan iyo Buulaburda iyo kali al meelo badan oo kale ay la wareegeen waxa jirta degmooyinka qorshayaal badan oo muran badan dhaliyay oo la leeyahay degmooyinka qaab yaa maamulaya ciidamada ma gacanta ku haynaya dad rayid ma loo dhiibaya arintaas oo kale dawladda maxaa is leedahay way tahay inay ku wajahdo xilligan بسم الله الرحمن الرحيم أنا waxay ila tahay dawladdu inay marka u horeysa waa federaalkuna wuxuu leeyahay nidaamkaas oo ah in dadka deegaanku ay wax doortaan inta dadka deegaanku ay wax ka dooranayaan waxay ila tahay aniga in loo magacaabo guddi degdeg ah oo sii haya degmada ya magacaabay kula waxa inay magacaabaan ay tahay dawladda barkee waxa uu ahaayay wax kala magacaabi karaa ma jiraan dawladda ayaa magacaabaysa degmooyinka la xoreeyo inay u sii magacaabdo guddi degdega intii dadweynihi waa ka cararayaan degmadii ay joogeen markay isu soo noqdaanna ay u soo gudbiyaan oo yidhaahdaan doorta waxa uu ahaayay dadkii hoggaanka idin noqon lahaa taas waxaan ka leeyahay si hadalka su-aasheeda su-aashay haddaan usoo laabto tan ciidamadu iska daaya annagoo joogna halkan London joogna ayaa og meesha ciidamadii u baxeen meesha ay joogaan ciidamadii dagaalka qaadayna meeshaas waa meesha ay dagaalka ku soo qaadayna way aaday nooga sii xog ogaalsan yihiin sida uu sheegay walaalkay Tawane oo ah nin saaxiibkaayo aad u jecelahay meesha uu kugu yiri bariga iyo koonfurtaba meelaha ay ugu jiraan waa ognahay marka sidii oo generaalku u sheegay aan ayaga ugu sinno waxaa jira waxyaalo badan oo sir ciidan ah oo aan la faafinin taas okay waa gartay taas waxa weeyaan howlgallada ciidamada iyo arrinta kale oo taagan waxay tahay Cabdicasiis xildhibaan si aragtaa iyay kula tahay inay maamul u sameeyaan goobaha la qabto intaan su'aashaas iyada ka jawaabo waxaan jeclaan lahaa inaan dib ugu noqdo hadalkii hore u socday ee ahaa Soomaalidu waxay ku mahmaadaa hadal hay oo kii wax ku tarayahay waxaa laga hadlayaa waa qabsashada xarumo iyo deegaamo ka baxsan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho halkaas oo ay fariisimo ama goobo ay xoog ku rahaayeen ahayd kooxdan aan horey u sheegnay ee dhigicabka ah ee duulaanka ku ah dadnimada Soomaaliya dawladdu waxay ku guuldareysatay inay wax ka qabato ammaanka magaalada ugu weyn ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa laga hadlayaa ammaanka waxaa laga hadlayaa degmo ka baxsan muxuu ahaa magaalada Muqdisho halkii iyadu ay joogtay hoggaanka dawladnimo ee Soomaaliya oo ka shaqeynayay waxaa lagu dilaa xildhibaano waxaa lagu dilaa wariyayaal waxaa lagu dilaa saraakiil waxaa lagu dilaa dad qalatada iyo gowracatada waxay maalin kasta ka wadaan waxyeelada shacbiga Soomaaliyeed shalay ma ahayd doraad oo maalin ka hor magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dhabarka hotelka Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho qarax xildhibaankii lagu dilay madaxtooyada hortiisa ilaa maanta cadaaladda lama horkeenin shacbiga Soomaaliyeed looma soo bandhigin xaafadda ay ka soo baxeen gaadiidka ay isticmaaleen hubka ay isticmaaleen dharka ay isticmaaleen ID cardki ay isticmaalayeen kuwii duulaanka ku soo qaaday madaxtooyada ama villa Soomaaliya yacni waxaan weydiinayaa
wariyayaashu iyo xildhibaan ma degdegayaan generaale waxa hawshoodii gudan waayey waa hogaamiyayaasha maanta jira amaan loo tiriya haddaad naga sugayso waxay ila tahay amaani shacbiga idinma hayo waxaa la idinka rabaa ballanqaadkii shacbiga soomaaliyeed ee ahaa in laga xoreeyo dad qalatada duulaanka ku ah inaad u sheegtaan wixii aad qabateen muddada idin hartayna waa kooban waxaa weeye walaalkay xildhibaan anu horta u jawaabi maayo waxaase u sheegayaa keliya amni darrada uu sheegayo adduunka o dhan bay horta amni darradu ka jirta maraykana wax ka dhacaan meel bay afghanistan meel bay wax ka dhacaan laakiin dawladdu intii karaankeeda maalinta ka dambaysa waxay xoog saaraysa in amnigu hagaago nin hadda naftiisii qarxinayo le inta naftiisii inta bamba halkan soo gashto waa isqarxinayaa leh yacni waa garan kartaan yani dhib uu geystay ammaan daraa waddanka o dhan jirta looma soo qaadi karo ciidamada amniga ee qaranka soomaaliyeed habeen iyo maalin waxay u taagan yihiin inay qarannimada soomaaliyeedna